Hogan 24 Media ka dhigo wehelkaaga. waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa xog ku saabsan nin qoraa ah oo u dhashay waddanka Mareykanka. ninkaasi oo dunida dadka ku nool intooda badani ay la yaabeen hab nololeedkiisa. run ahaantii waqtiga la joogo bulshada intooda badani waxay ku mashquulsan yihiin baraha bulshada ay ku kulmaan ee social media. taasi oo caado ka noqotay dhanka bulshada ku nool ee adduun weynaha. waxaana sii badanaya dadka maalayacniga waqtigooda isaga lumiya. haddaba intaanan u gudagelin barnaamijkan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe leh gambaleelkana furo si aad u heshid barnaamijyada cusub sidoo kalena share si aad ula wadaagtid asxaabtaada. mahadsanid. Cal Newport ninkan waxa uu caan ku yahay amaba uu sheegay inuusan isticmaalin weligii baraha bulshada ay ku kulmaan ee social media. waa professor cilmiga kombiyuutarka ka dhiga jaamacadda Georgetown. cilmi baaristiisa iyo tacliintiisa ka sokow waxa uu wax ka qoray tiknoolajiyadda dijitaalka ah iyo dhaqanka. Cal Newport wuxuu dhashay June 23, waa bara ku xeeldheer cilmiga kombiyuutarka ee jaamacadda Georgetown. wuxuuna qoray buugaag dhowr ah oo kaga hadlayo horumarinta nafta iyo cilmiga tiknoolajiyadda. waa qoraa caan ah, haddana waxa uu leeyahay weligay maanan isticmaalin social media. saddexdiisii buug ee ugu horreysay waxay ka hadlayeen talooyin ku saabsan ardayda. sidoo kale waxaa jira buug uu qoray oo lagu magacaabo Deep Work oo micnaheedu noqonaya howl sugan ama shaqo qoto dheer. maruu ka hadlaya buuggaas waxa uu yiri natiijo ahaan shakhsiyaadka iyo ururada geliyay dadaalka adag way barwaaqoobi doonaan. buuggaas waxa uu ka mid yahay buugaagtiisa ugu caansan. waxa uuna sharaxay in dadka intooda badani waqtigooda ku lumiyaan waxyaalo maalayacni ah sida Facebook, Snapchat, WhatsApp, Fiverr iyo dhammaan social media iyo wixii la mid ah. waxa uu sidoo kale yiri waxa ay midaasi iga saaciday noloshayda aan wax badani ka bedelo. sidoo kalena waxa uu sheegay markii la sameeyay Facebook waxaan is weydiiyay maxaad nin dhalinyaro ah oo ka yar uga saacidaa ganacsigiisa, maxaan waqtigeygana ugu luminayaa. sidoo kale Cal Newport waxa uu caan ku yahay inuusan isticmaalin amaba kula sheekaysanin emailka warbaahinada kala duwan, balse taa beddelkeeda fariimaha ay soo diraan loo akhriyo una akhriyaan shakhsiyaad isaga u qaabilsan. haddaba ninkan waxa uu ku caanbaxay buugaagta uu qoro durbadiiba inay suuqyada qabsadaan. sidoo kalena waxa uu leeyahay markii aan wax diyaarinayo ma isticmaalo TV iyo telefoon midnaba. waxa uuna sheegay in muddadaasi ay noqoto mararka qaar 4 saacadood iyo ka badan. waana waxay adag tahay in waqtigan uu sameeyo ruux dhalinyaro ah haddana ku jira xindaabka tiknoolajiyadda. haddaba daawade maxaa kula gudboon, maxaadse ka aaminsan tahay baraha bulshada ay ku kulmaan ee social media? waa inoo muhiim fikirkaaga, fadlan commentiska inoogu reeb. mahadsanid.